horumarinta caafimaadka Soomaaliland waxa ay sheegtay inay xaqiijisay 3 bugta oo qaba xanuunka coronavirus. wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland mudane Cumar Cali Cabdilaahi Bade oo maanta warbaahinta kula hadlay wasaaradda gudaheeda waxa uu sheegay in 3 qof mid ka mid uu ku nool yahay magaalada Boorama halka labada kalena ay ku nool yihiin magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. wasiirka waxa ka mid ah hadaladiisii marka hore waxaan la socotaan inaynu qaran ahaan aynu ku jirnay dadaal socday muddada oo la jaan qaadaya isbedelada ku imanaya xaaladaha xanuunkan ama ha noqdo adduunka ama ha noqoto qaaradda Afrika ama ha noqoto gobolka geeska Afrika ama ha noqoto dalkeena inaynu xaaladaha la soconay oo marba wax isbedela aynu shacabka la socotiinay inaguna aynu talaabooyinka ku habboon aynu ka qaadanay arrimaha ugu horeeya waxa ugu muhiimsanaa in la socono dhaqdhaqaaqa dadka ee ka soo galaya dalka meelo kala duwan ama dhulka soo maraan ama badda ama cirka halkaas waa meesha ugu horeysay in kula socon jiray dhaqdhaqaaqa iyo isbedelka xaaladaha ee xanuunkaasi waxa sidoo kale aynu ku dadaali jirnay mar walba in cid ay looga shakiyo xanuunkaasi inuu ama ku dhacay ama loo baahan yahay in la xaqiijiyo inaynu shaybaad aynu diri jirnay oo taana aynu go'aamada ku qaadan jirnay marka shaybaadka aynu isticmaalno WHO ay ku talisay oo halka ku yaala South Africa ama Kenya muddo dhaweed waxaanu shaacinay inay jireen 2 xaaladood oo midkoodna uu magaalada Burco ahaa magaalada Berbera labada xaaladood baynu muddaba aynu gacanta ku haynay labada xaaladood caafimaadkooda aad buu fiican yahay wasaaradda caafimaadkuna si maalinle ayuu la socotaa xaaladda caafimaadka xogtoodana ay u heshaa arintaasi iyadoo jirto waxa jiray inaan wadana shaybaar u dirnay 24 qof oo dambe oo daba soconay oo xaaladooda caafimaad la soconay 24 qof waxa noo soo noqotay natiijadoodii maantana waxaanu dadka u sheegaynaa bulshada reer Soomaaliland inay jiraan 3 kiis oo cusub oo xanuunka inuu qabo oo ku dhacay la xaqiijiyay xaaladooda caafimaad aad u wanaagsan tahay wax imiga calaamado badan kama muuqdaan xaalad kamida oo qofkaasi hadda wuxuu ku sugayay magaalada Boorama labada xaaladood kalena waxa ku sugayay magaalada Hargeysa inta waxa dheer inay jiraan 2 qof oo kale oo iyaguna aanu si gaar ah ula socono xaaladooda caafimaad oo shaybaarkooduna aanu gacanta ku hayno oo wixii iska bedelana aanu dib ka soo sheegi doono inta markaynu aan ku dhameeyno warbixinta bulshada waxaan u sheegaynaa war xanuunkani uu jira waa dhab waxaanu sheegaynaa wax la hubiyo oo aanan ku deerin kaliyata shaybaarka qaranka laakiin si aan u hubino aanu WHO anagoo isticmaalayna guidelineskeeda iyo nidaamkeeda loo diro wadamada jaarka ee uu yaalo muxuu ahaa shaybaarada kuweena ka casrisan marka la soo xaqiijiyana aanu bulshada u sheegno xanuunkaasi uu jira waana marka la isku geeyo 5 kiis oo waxaanu haynaa xanuunkaasa saashin 2 xaaladood dambana gacantan ku haynaa taas marka waxay waajib ka dhigaysaa qof walba adiga mas'uuliyad gaar ka saaran tahay inaad caafimaadkaaga ilaaliso tilmaamaha wasaaradda caafimaadka aad raacdo waxana saas ku bilaabma hadda adduunka dhageysanaysaan ma jiro wadan hal mar diiwaan geliyo 100 kiis wuxuu ka bilaabmay xaalad 2 xaaladood 3 4 5 tiraduna saas oo socota marka waxaan codsan lahayn fadlan hal loo dhiga nuglaado talooyinka wasaaradda caafimaadka qof walba maanta macluumaadka la xiriira sida xanuunkan uu faafo sida la isku dhowrayo qofka hadduu ku dhaco xataa sida aad ula macaamilaysaan waad ka dharagsantihiin laakiin waxaan u maranayaa maanta waxaan taaganahay waqtigii qof walba uu si dhab arrinta u fulin lahaa xukuumad ahaan guddiga qaran wada weydeen waxa soo saareen qaraaro tiro badan oo la xiriira habdhaqanka dadka meelaha la isugu imanayo iyo sida rabo dadku inay u noolaadaan wixii ka dambeeyana maalmo talaabo cusub baan ku dari doonaa waxaana noqonaysaa dadka waajib baa naga saaran hal wacyi geliyo ama halo isticmaal habab kale dadkii xanuunkii laga ilaaliyo oo faafitaankiisana aynu yareenon hakino taasina waa waajibna saaran dhamaanteeba mar labaad waxaan aad ugu mahadnaqayaa bahda saxaafadda oo runtii wacyi gelinta door weyn ka qaata oo bulshada wacyi geliya xanuunkan wixii la xiriira markasta uu tabinaya waxaan codsan lahayn hawsha in la joogteeyo waxa kaliya ee dawada kaliya xanuunkaasi leeyahay ma hadda qofku liqo ma aha talaal waa inuu qofku ka hortag sameeyo oo uu tilmaamihii caafimaad ee markasta loo sheegayo raaco Soomaaliland oo hore looga helay 2 ruux oo qaba xanuunka coronavirus ayaa noqonaysa tiradani tii ugu badneed ee shaacisay Soomaaliland tan iyo intii uu jiray xanuunka coronavirus Axmed Nuur Ciise telefishinka bulsho Hargeysa